maamulka xarunta agoonta gabdhaha ee Boondere ayaa in ka badan 600 oo gabdhaha agoon ah u qaybiyay dharka ciida oo dhameystiran waxaana sanadkan ka caawiyay gabdhaha dharka ciida dowladda Jabuuti iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen qaar ka mid ah waalidiinta ayaa lagu qabtay xarunta gabdhaha agoonta ee Boondere Safiya Cabduqaadir Maxamed iyo Zahra Axmed Xiiri oo ka mid ah gabdhaha agoonta ee xaruntan ayaa ka mahad celiyay siinta dharka ciida. Waxaan ku faraxsanahay dharkina la siiyay waxaan u mahad celinaynaa intana la garab gashay dharka ciida. Waxaan ka bilaabayaa farxadda ciida maanta waxaan u mahad celinayaa intii ka qayb gashay anigoo isku qabanayo dhammaan ciddii ka qayb qaadatay dhammaan ciddii dareentay ee isku dayday ee ku fikirtay ee hanti ku bixisay ee maskax ku bixisay in ay farxaan oo ay ciidaan gabdhaha agoonta ah waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa safaaradda Jabuuti ee aan walaalaha nahay ee ugu horeeyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele Cafiifo Yaasiin Cali iyo Xabiib Cabduqaadir Axmed oo ka mid ah waalidiinta gabdhahooda ku jiraan xaruntan ayaa u mahad celiyay cid walba oo ka qayb qaadatay farxadda caruurtooda maanta inaan ka qayb galayno ciidii gabdhaha agoonta Boondere waxaan mahad weyn u celinayaa intii soo dhiibtay ka soo qayb intii soo dhiibtay ilmahan gabdhahan agoonta Boondere ciidaanayti kala soo qayb gashay maanta ciida aan joogno ilaahay maadiisan leenahay dadka soo abaabulay iyo dadkana soo siiyay iyo dadka oo maanta nala farxooyba ilaahay qaar Allah siiyo Nuurta Maxamed Cadow maamulaha xarunta agoonta gabdhaha ee Boondere ayaa tilmaantay in waxbaridda iyo daryeelka kale ay ku dadaalaan in agoontu ay ciido waxayna uga mahad celisay dowladda Jabuuti oo mar walba garab taagan agoonta maanta waxaan u taaganahay oo bilaabnay ciidsiinta gabdhaha agoonta ah tirakoobkii ugu badnaa meesha noo fadhiyo inta dhimanna aan process ay ku jiraan oo lagu diyaarinayo dharka kabihii lagu diyaarinayo waa ilaahay mahadiis munaasabadan waxaan uga mahad celin rabaa oo meeshaan u soo istaagay dowladda Jabuuti uu madaxweynaha ka yahay madaxweynaheena ugu qaaliga ah Ismaaciil Cumar Geele oo mar walba soo tamadiyo runtii xaqiiqatan dhahayo gabdhihii agoonta ahaa ma la qiyaasi karo doorka uu ku leeyahay agoonta Soomaaliyeed gurigan quruxda badan iskama imaanin munaasabadahan iskama imaanin ciidsiintooda haday tahay inuu wax naga weydiiyo marka aad ay u mahadsan yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo dhammaan qoyskiisa xarunta agoonta gabdhaha ee Boondere waxa ay gacanta ku haysaa in ka badan 1200 oo gabdhood waxaana xarunta dhismaheeda sirriyeynteeda ugu deeqay madaxweynaha dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele